بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مطبخا منى maanta waxaan sameynaynaa banana pancakes waa malawax laga sameeyay muus waxaad u baahan tahay koob daqiiqa ama bur ah malgacad yar oo kala badhkeeda baking soda ama baking powder fixisada xabad beeda ukun iyo koob badhkiis oo caano ah iyo laba midho muus ah haddaad doonaysid you can double the recipe oo maqaadirta laba jibaarkeed baad ka dhigi kartaa haddii aad badan tihiin haddii kale intana ku samayn kartaa inankayga yaraa baa maanta madbaxa gelaya marka wuxuu isku daray imika daqiiqdii marka daqiiqda koobta buniga iyo koobta cadaanka ayaan isku daray laakiin labadaba cadaan waa ka dhigi kartaa labadabana madow waad ka dhigi kartaa madiibad yar ama baaquli yar wuxuu ku qasayaa imika caanihii iyo xabad ukun ah xabad beed ah ayuu isku qasayaa haddana baaquliga saddexaad waxaan ku jarjaraynaa ama ku bujuuqinaynaa smash the bananas muuska laba midho muus ah ayaa fargeeto you're gonna smash it with the fork fargeeto ayaad ku smash garaynaysaa ama bahashan loogu talagalay smash potatoeska kaa doontid fargeetana waad ku samayn kartaa wax dhiba kuma jirto imika markuu tan ku sameeyo fargeetu ku samayn doonaa saa inii sheegay recipeka waad haddaad badan tihiin double baad ka dhigi kartiin haddii kalena intan waxay noqonaysaa 8 midh oo pancakes ah banana pancakes carruurtu way jecel yihiin waa fudayd iyagaana kaligood samaysan kara imika wakaa muuskii waa diyaar daqiiqdii iyo waxaan isku shubaynaa caanihii xabadda beesta lagu qasay daqiiqdana waxaan ku darnay baking soda baking powderna waa ku dari kartaa fixisada loogu talagalay keegaga malgacad badhkeed wax badan uma baahna imika intiibuu isku qasayaa markuu intaas ku qasana wuxuu ku darayaa muuskii aan smash garaynay ama bujuujiqinay labadaas ayaa la isku darayaa laakiin inta la isku darin waa in daqiiqda la dhigaa marka ugu horeysa oo daboolayaa maro intaad ku dabooshid waxaad dhigaysaa markaa 30 minutes meelahaas 30 daqiiqadood ayaad muuska iyo daqiiqdii aad isku dartay iyo caanihii aad dhigaysaa 30 daqiiqadood kadibna waxaad isku daraysaa labada mixture the banana and mixture-ka kale ayaa isku daraysaa so imika wuxuu soo qaadayaa muuskii wuxuu ku darayaa daqiiqdii bas intaas weeyaba banana pancakes is very easy wax weyn ma aha laakiin wuxuu ku fiican yahay carruurtu way jecel yihiin waa macaan iyaguna kaligood way samaysan karaan markaas waqti badanna kaama qaadanayo maqaadirta intaa waraaq ugu qortid uun waad madbaxa u dhigaysaa marka way samaysan karaan way is caawin karaan imika isaga ayaa qasaya inantayduna iyaduna way dubaysaa waatan malgacaddan waad kusoo qaadan kartaa haddaa malgacaddan haysanna koob yar baad ku qiyaasi kartaa in yaroo islaaleeg laba midh baad u dubi kartaa ama saddex midh baad u dubi kartaa marka aad ku shubtid maqlaha ama daawaha ma la yidhaahdaa waxaa arkaysaa small little bubbles ayaa soo baxaya markii waxaa yar soo baxaan baad rogaysaa waa diyaar pancakeskii markaas labadood ugu shubi kartaa imika saddex bay ugu shubaysaa waad arki doontiin that's 1 and that's 2 and another 3 waa taatii saddexaadna carruurta inay madbaxa galaan oo keligood wax samaystaan aad bay u fiican tahay marka waa idinkula talin lahaa in waxyaabaha fudfudud ay samayn karaan dabcan hadday yar yihiin hadda dabka waad la eegaysaa oo dabka waad u shidaysaa waad u gaabinaysaa waad u dheeraynaysaa laakiin carruurta madbaxa inay bartaan oo isku filaan karaan oo waxyaabo fudfudud sida omeletka banana pancakeskan shaahiya samaysan karaan smoothie juice casiir waxyaabaha fudfudud oo dhan macaroni daska fudud oo tomato sauce lagu sameeyo so that's it insha Allah see you next time fi aman illah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh